كيد كيراي افتيك مالو كهن اوكي guys هاو كان صح هذا لا iminka waxaynu xafiiskiisa ku sugannahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ahna kusimaha gudoomiyaha xisbigaasi Axmed Muumised bariyo ugu dambeysay waxaa jirtay warar sheegaya inay jiraan musharaxiin kugula tartami doona booska madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye arrintaas bismillaahir rahmaanir rahiim runtii horta waqtigii musharaxiinta la xisbigu ma gaadhin laguma dhawaaqin shirweyne golaha dhexe laakiin haddana mar kasta xisbigu waa xisbi qaran gudihiisa tartanku waa imanayaa cid kastoo damac siyaasadeed ka galay markaa inay nagula tartanto aniga igula tartanto shakhsi ahaan Axmed Muuse haddaan ahay ku-xigeenka musharaxnimada waan soo dhaweynayaa wax dhiba ama culays oo aan dareemaya ma jirto tartankuna waa wax noo furan mar walbana oon diyaarna u nahay inaanu muxuu ahay tartanno laakiin waqtigeega markay gaadho ayaa kolleyta ay ku habboon tahay laakiin imika weli may gaadhin waqtigeegii lamana mudin shirweyne golaha dhexe marka waxaan isleeyahay way degdeg baa ku jira muxuu ahay dhinaca malaha saxaafadda warka aad baa loo jecel yahay waxaan ugu bishaaraynayaa uun shacabka reer Somaliland in anagu ka xisbi ahaan xisbigu aan rajayn doono haddii la yidhaahdo inuu noqdo xisbi dimuqraadi oo gudihiisa lagu tartamo cid walbana marka golaha dhexe la mudeeyo halka ay caafiga ka qaadi doonto haddii la yidhaahdo bismillaahir rahmaanir rahiim runtii dowladda hadda maanta talada dalka haysta waa Axmed Siiraay hogaaminayo waxaad moodaa way ku fashilantay runtii hogaankii ummadan dalkan waxa dareemayo waxaan aad iyo aad markaad safar gashaa dareemaysaa isku socodka xuduudada oo dhan culays badan baa jira laakiin hadda xukuumadda waxa waruma hayso agaasimayaashii iyo barasaabada gobolada iyo waxaasoo dhan waxa weeye nin walba halka joogo iyo waa la iswada haystaa waxaan aad iyo aad nacam u cambaareynaa waxaad ogeydeen in wasiirkii howlaha guud gurinta ceergaabo tagay agaasimo la xidhay oo loo xidhay wadka hortag weeyay wasiirka waxaasoo dhan xukuumaddu runtii ma oga maga madaxweynuhu inuu dibadda usoo baxo shacibkiisa la hadlo xaaladda dalka inuu ogaado ayay ahayd laakiin agaasimayaashu xafiiska kula hadlaa wax badan oo qiimaha ma soo kordhinayso marka xukuumaddan waa inay iyadu isa saxlaa waayo hadda waxay jira waxaynu u gadaamaan waxyaabo fara badan wayna hadda ilaa imka maciishadii oo runtii maciishada sicir bararka doolarka maanta halku marayo dadkii danyarta oo dhan runtii way baktiyeen waxaasoo dhan xukuumadda waruma hayso waxaad moodaa talada dalkana in nin walba halka uu joogo isagoo uu isku cajabiyey laakiin cid shacibkii eegaysa iyo xaaladda dalku cid meel u maraya taasina ay u baahan tahay madaxweyne Siiraay hogaanka dalka ayaa inuu ummadiisa la hadlo oo u sheego xaaladda dalka wax marayaan maciishada wuxuu ka qaban karayo sicirba dalka wuxuu ka qabanayo runtii dowladda maanta waxaa taala hawl badan baa u taalo laga fadhiyo inay xaliso waxaa jirta in arrin macdanta ka taagan goobaha laga qodayo dadweyne cabasho ka muujinayaan sidoo kale ay dad sheegeen inay arrintaasi keeneen cudurro goobaha laga qodayo arrintaas aad arag bismillaahir rahmaanir rahiim arrintaasi runtii anu waxaan isleenahay meelaha goobaha laga qodayo macdanaha dad shacib ah runtii ku nool dhibaatooyin badan bay dadkaas sheeganayaan in dadka muxuu ahay gurmad loo sameeyo la tago xukuumaddu ay arrimaha muxuu ahay ka howlgasho la eego shacibka waxay ka cabanayaan la eego dadka shacibka hoos loo eego kulli arrimaha noocaas oo dhan waa arrimo u yaala xukuumadda hadda talada haysa inay tallaabooyinkeega ku habboon ka qaato